السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داوديال qodobada aad barnaamijka ku daawad doontaan waxa kamid ah hanjabaada Suudaan ee Itoobiya iyo militariga Itoobiya oo soo bandhigay gaadiidkii ugu badnaa ay ka furteen madaxda TPLF iyo amxaarada iyo oromada oo baraha bulshada ay ku wada xiriirto diriir ba'an ay ku dhex marayso diyaaradda ay jabhada TPLF ka soo riday militariga Itoobiya ma runba mase qodobadaas iyo qodobo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka daawadaya waxaan la socodsiinaya anigoo qooja ah fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe ta saaro like ta taaba siina share garay si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya xogaha aan baahino haddii aad horey noola joogtana waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga mahadsanid aynu ku horeyno hanjabaada Suudaan oo mar kale Itoobiya cadaadis saartay dalka Suudaan ayaa go'aan adag ka soo saaray xiisada biyaha webiga Niilka waxayna sheegtay in aysan aqbali doonin in Itoobiya mar kale biyo xireenka buuxiso ilaa laga saxiixayo heshiiskii la isku diidanay warbixin ka soo baxday wasaaradda biyaha ee dalka Suudaan ayaa lagu sheegay in ay halis ku noqon doonto haddii aysan Itoobiya saxiixin heshiiskani dalka Suudaan laguma aqoonin hadaladanka kan ay u adeegsanayso wadanka Itoobiya muddooyinkii ugu dambeeyay laakiin dhawaanahan intii xiisadu bilaabatay dalka Suudaan ayaa isaga baxday wada hadaladii socday maalmo ka horna Suudaan ayaa qabsatay dhul beereed muddo badan lagu muransanaayo oo Itoobiya horay uga habsatay arrintaani ayaa ku soo beegmaysa xilli wadamada Suudaan iyo Masar ay iskaashi military samaysteen dhawaanahan taasoo uu looga galeeyahay in cadaadiska lagu saaro wadanka Itoobiya taasoo buuxin ku waday webiga Niilka oo wadamada saddexdaani wadan ee Suudaan Itoobiya iyo Masar waynu ogaa doonaa meesha ay ku dambeeydo colaadani u dhaxaysa wadamada Suudaan iyo Itoobiya Suudaan oo ah dal ay daashadeen musuqmaasuq iyo dhibaatooyin badan iyo colaado in badan soo socday iyo Itoobiya intaasi baraara iyo barwaaqo iyo bashbash ku jirtay taasoo bilcagsigeedii hadda ay isku bedeshay Itoobiya dal colaado ka socoto Suudaanna ay isku bedelayso dal nabad ah oo barwaaqo iyo xayiraadihii caalamiga intaba laga qaaday adduunyadu waa harka labadiisa gelin marka aan sidaas kula yahay tusaale yar aan ku soo qabto horay dalka Suudaan ulama aysan hadlan Itoobiya oo ay ka gaabsanaysay dhibaatooyin ayaga dhaxdooda ah oo gudaha ayaa jiray maanta Itoobiya Suudaan waxa ay qabsatay meelo badan oo lagu muransanay Itoobiya ilaa hadda kama aysan hadlin Suudaan hadda waa ay hanjabaysaa Itoobiya ilaa hadda jawaab kama aysan bixin markii adiga gudahaagu oo dagaal kaaga furmo banaanka waxba kama qaban kartid Suudaan shalay gudaha ayaa dhibaato uga furreed maanta laakiin gudaha waa ka xalisay yihiin walow ay Israa'iil la xirteen oo arrin aad iyo aad looga murgo ah oo maamulka hadda dalka Suudaan haysto arrin dib u dhaca oo wadamada muslimiinta in wadan yar oo asaga dhan 2 milyan oo Israa'iil in la hoosgeeyo ay arrin aad iyo aad u foolxun tahay laakiin Suudaan wax ay ku tilaabsanaysaa horumar wacan dhinaca inay dhulkoodii soo ceshato iyo inay iska celiso Itoobiya maadaama webigaani uu ka dhaxeeyo wadamo dhowr ah oo ay Suudaan ka mid tahay dadka Suudaan xaq waxa ay u leeyihiin in webigaas ayagu ay quudanayaan oo noloshoodu ku jirto ay ku xiran tahay in ay difaacdaan halkaas aynu uga gudubno dalka Suudaan markaan waxaan u gali doonaa diyaaradda la sheegay in ay soo rideen jabhada TPLF diyaaraddaasi oo nuuceedu yahay MiG-23 ilaa shalay ayaa baraha bulshada la waday in diyaaraddaasi soo rideen jabhada TPLF laakiin dhinaca dawladda ilaa hadda wax wara kama aysan soo saarin sidoo kale maamulkii TPLF ama jabhada TPLF ilaa hadda wax wara ayaguna kama aysan soo saarin oo ma aysan sheegan diyaaraddaasi inay soo rideen marka warka diyaaraddaani xaqiiqdiisu waxa uu yahay ilaa hadda labada dhinac wax wara laga ma hayo waa suuragal inay soo dhacday diyaaraddaas waa ay jiri kartaa laakiin dawladii ma aysan beenin oo waa been ma aysan dhihin dawladda Itoobiya sidoo kale jabhadii diyaaradda soo riday ma aysan dhihin waa soo ridnay walow la leeyahay jabhadda TV-goodii in muddaaba hawada soo muusagelin oo maalin dhawe tagataa jawreeda mar ay wareysanayaan ayaa u dambeysay taasuna wax ay ku tusinaysaa in cadaadis fara badan ay la kulmayaan jabhadda TPLF oo waxa la leeyahay dhinaca buuraha ayay isku arursanayaan oo ku dhuumaalaysanayaan dawladuna waxa ayba dhinacii buurihii ayay duqeyn dhinaca droniska diyaaradahan dhinaca droniska ayaa dhinaca buuraha ku duqeynaya way adag tahay kulay haday buuraha galaan dadkii wadanka u dhashay si looga adkaado laakiin cadaadis fara badan ayay dareemayaan waayo xitaa warbixinadii maalintii ugu yaraan 3 ilaa 4 barnaamij ay soo gali jireen oo waxay u hadli jireen iska soo daba dhaca hadeertaan war wiiftaha Reuters loo tuuro iyo war kale wiiftaha France 24 loo tuuro iyo wax aan ahayn ilaa hadda laga ma hayo jabhadii TPLF marka laftirkoodu marka sheegashadooda ayagoo hadla waan sugi doonaa hadii aan hadlaan ayna xaqiijiyaan diyaaraddan inay soo rideen waan in la socodsiin doonaa hadii dawladda Itoobiya ay beenisay sidoo kalena waan in la socodsiin doonaa bal inuu galno markaane
gaadiidka ay sheegtay dowladda Itoobiya in ay soo qabteen oo ay lahaayeen madaxda sarsare ee TPLF militariga Itoobiya ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen 40 gaari oo ay lahaayeen maamulka sare ee TPLF taliyaha qaybta 32 Cornel Dachane ayaa warbaahinta dowladda u sheegay wax yar ka hor inay maanta soo qabteen 40 gaari oo ay ka carareen hogaamiyaal sarsare oo TPLF ka tirsan Dachane ayaa yiri markaan bilownay howlgalka lugta waxay isku dayeen inay ka cararaan baabuurta ayagoona lugta maciin biday waxa sidoo kale la u dhignay 10 Cornel Dachane ayaa sheegay in ay baabuurtaani keeneen magaalada Maychaw sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in maamulka TPLF u baxsadeen dhulka buuraleyda ah ee fogfog wuxuuna sheegay inay uga dabagali doonaan meesha ay galaanba sharcigana horkeeni doonaan mar aan isha soo mariyay sida looga falceliyay gaadiidkani ay soo bandhigtay dowladda Itoobiya ayaa waxa ay leeyihiinba dowladdu ma waxa ay noo sheegaysaa gaadiidka noocan ah ee raqiista ah ayaa waxa wada jiray Getachew Reeda iyo Debersion Gabra Mitchell iyo saraakiisha sarsare ee TPLF gaadiidkani markii laga fiirsho wadanka Itoobiya waa gaadiid ay isticmaalaan dadka leefarka dhexe ah laakiin sida la aaminsan yahay saraakiisha sarsare ee TPLF oo ku suntanay boobka iyo dhaca hantida dadweynaha sidoo kale shacabka Soomaaliyeed hanti badan inay ka boobeen la aaminsan yahay waayo 27 sano la soo dhaafay waxa Soomaaliya qasay waxay ahaayeen maamulka TPLF laakiin hanti badan oo ay Soomaali leedahna waa ay ku maqan tahay waayo magaalooyinkooda quruxda badan waxa lagu dhisay magaalooyinkeenii quruxda badnaay ee la dumiyay hantidii ay ka dhaceen Itoobiyaanku maalmo ka hor ayay ahayd markii saxaafadda Suudaan ay tabinaysay in mid kamid ah maleeshiyaadkii Tigreega ay qabteen asagoo ka gudbaya xadka Suudaan ay la wadaagtay Itoobiya kaasoo la sheegay in uu watayba 92 milyan oo dollar iyo dahab iyo diamond iyo gaadiid aad u qaaliya marka markaad fikirto ay ku tusinaysaa in uusan ahayn gaadiidkii madaxda sare ee TPLF haddii hogaamiye maleeshiya qarash intaas la eg lagu qabtay nimankaanuna waaba ay ka sii sareeyaan halkaas aanu uga gudubno waa macquul sida dawladdu ay sheegtay in ay tahay gaadiidkii dhabta ah anagu ma xaqiijin karno laakiin hadaladii baraha bulshada la hadalhayay ayaan idinkaga soo qabanay anaguna aaraadeen ayaan ku darsanay guna fikradaada waxa ay kula muuqato dhinaca commentiga ayaad soo abaari kartaa sidoo kale war degdeg oo hadda soo kordhay laba kamid ah shaqaalaha qaramada midoobeed ayaa maanta lagu toogtay xero qaxootiga ku taala gobolka Tigreega kooxda ammaanka ee qaramada midoobeed oo doonaysa inay booqato xero ay ku jiraan qaxooti Eritrean ah oo ku taala gobolka Tigreega ee dagaaladu aafeeyeen ayaa loo diiday inay galaan gudaha xerada laba kamid ah halkaas ayaa lagu toogtay sida ay sheegeen ila xog ogaala oo ka agdhow hay'adaha qaramada midoobeed arrintaani ayaa waxa ay dhacday kadib markii kooxdu isku dayday inay booqato Shimelba oo kamid ah xerooyinka ay ku jiraan qaxootiga Eritreanka ah ee waqooyiga gobolka Tigreega ila wareedyo ayaa waxa ay u sheegeen wakaalada wararka ee Reuters inaysan faahfaahin dheeri ah bixi karin ayagoo sheegay inay u baqayaan naftooda labada maamul ee meesha ka jira waa Itoobiya iyo maamulka jabhadda xoreynta TPLF labaduba kama aysan hadlin dhacdadan markana aynu galno sida oromada iyo amxaaradu ay isku baashaalayaan baraha bulshada hanjabaadyo ayaa la isku marinayaa oo amxaaradu waxa ay taagan yihiin oo ay bahdilayaan oromada waxa ay leeyihiinba kunkii askari ee oromada ah waxa u dhigma 10 askari oo amxaara ah waa ay ka tababar fiican yihiin waa ay ka geesisan yihiin waa ay ka sharaf badan yihiin waa ay ka taatika badan yihiin dhinac walba annaga ayaa uga fiican ayay leeyihiin kun askari oo oroma waa loogu kalsoon yahay 10 askari oo amxaara ayay leeyihiin amxaaradu waa la yaab wallahi arinta la yaabkeeda ayay leedahay marka amxaaradu waa dad saas isku qab weyn Itoobiyaanka kale dhan inay ka sareeyaan ayay aaminsan yihiin waayo dalkan muddo dheer ayaga boqortooyo ay iska haysan jireen marka dadka dhanba maba u aaminsanaba in ayaga ay ku leefar yihiin waana sida lagu yaqaanaba boqortooyinka adduunka ka jiro dhanba waxay aaminsan yihiin in dadka ka leefar sareeyaan marka ayaga boqortooyadii waa ay dhacday laakiin wili DNA-gooda waxa ku jira DNA-gii boqortooyada oo waxa ku jira inay ummadaan oo dhan ay ka sareeyaan intaas ayaan ku soo koobaynaa warbixintan barnaamijka xiga ayaa noobal ama amaana Allah
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنا وناكسن داوديال qodobada aad barnaamijka ku daawad doontaan waxa kamid ah hanjabaada Suudaan ee Itoobiya iyo militariga Itoobiya oo soo bandhigay gaadiidkii ugu badnaay oo ay ka furteen madaxda TPLF iyo amxaarada iyo oromada oo baraha bulshada ay ku wada xiriirto diriir ba'an ay ku dhex marayso diyaaradda ay jabhada TPLF ka soo riday militariga Itoobiya ma runba mase qodobadaas iyo qodobo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka daawadaya waxaan la socodsiinaya anigoo qoojo ah fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe ta saaro like ta taaba siina share garay si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya xogaha aan baahino haddii aad horey noola joogtana waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga mahadsanid aynu ku horeyno hanjabaada Suudaan oo mar kale Itoobiya cadaadis saartay dalka Suudaan ayaa go'aan adag ka soo saaray xiisada biyaha webiga Niilka waxayna sheegtay in aysan aqbali doonin in Itoobiya mar kale biyo xireenka buuxiso ilaa laga saxiixayo heshiiskii la isku diidanay warbixin ka soo baxday wasaaradda biyaha ee dalka Suudaan ayaa lagu sheegay in ay halis ku noqon doonto haddii aysan Itoobiya saxiixin heshiiskani dalka Suudaan laguma aqoonin hadaladanka kan ay u adeegsanayso wadanka Itoobiya muddooyinkii ugu dambeeyay laakiin dhawaanahan intii xiisadu bilaabatay dalka Suudaan ayaa isaga baxday wada hadaladii socday maalmo ka horna Suudaan ayaa qabsatay dhul beereed muddo badan lagu muransanaayo oo Itoobiya horay uga habsatay arrintaani ayaa ku soo beegmaysa xilli wadamada Suudaan iyo Masar ay iskaashi military samaysteen dhawaanahan taasoo uu looga galeeyahay in cadaadiska lagu saaro wadanka Itoobiya taasoo buuxin ku waday webiga Niilka oo wadamada saddexdaani wadan ee Suudaan Itoobiya iyo Masar waynu ogaa doonaa meesha ay ku dambeeydo colaadani u dhaxaysa wadamada Suudaan iyo Itoobiya Suudaan oo ah dal ay daashadeen musuqmaasuq iyo dhibaatooyin badan iyo colaado in badan soo socday iyo Itoobiya intaasi baraara iyo barwaaqo iyo bashbash ku jirtay taasoo bilcagsigeedii hadda ay isku bedeshay Itoobiya dal colaado ka socoto Suudaanna ay isku bedelayso dal nabad ah oo barwaaqo iyo xayiraadihii caalamiga intaba laga qaaday adduunyadu waa harka labadiisa gelin marka aan sidaasi kula yahay tusaale yar aan ku soo qabto horay dalka Suudaan ulama aysan hadlan Itoobiya oo ay ka gaabsanaysay dhibaatooyin ayaga dhaxdooda ah oo gudaha ayaa jiray maanta Itoobiya Suudaan waxa ay qabsatay meelo badan oo lagu muransanay Itoobiya ilaa hadda kama aysan hadlin Suudaan hadda waa ay hanjabaysaa Itoobiya ilaa hadda jawaab kama aysan bixin markii adiga gudahaagu oo dagaal kaaga furmo banaanka waxba kama qaban kartid Suudaan shalay gudaha ayaa dhibaato uga furreed maanta laakiin gudaha waa ka xalisan yihiin walow ay Israa'iil la xirteen oo arrin aad iyo aad looga murgo ah oo maamulka hadda dalka Suudaan haysto arrin dib u dhaca oo wadamada muslimiinta in wadan yar oo asaga dhan 2 milyan oo Israa'iil in la hoosgeeyo ay arrin aad iyo aad u foolxun tahay laakiin Suudaan wax ay ku tilaabsanaysaa horumar wacan dhinaca inay dhulkoodii soo ceshato iyo inay iska celiso Itoobiya maadaama webigaani uu ka dhaxeeyo wadamo dhowr ah oo ay Suudaan ka mid tahay dadka Suudaan xaq waxa ay u leeyihiin in webigaas ayagu ay quudanayaan oo noloshoodu ku jirto ay ku xiran tahay in ay difaacdaan halkaas aynu uga gudubno dalka Suudaan markaan waxaan u gali doonaa diyaaradda la sheegay in ay soo rideen jabhada TPLF diyaaraddaasi oo nuuceedu yahay MiG-23 ilaa shalay ayaa baraha bulshada la waday in diyaaraddaasi soo rideen jabhada TPLF laakiin dhinaca dawladda ilaa hadda wax wara kama aysan soo saarin sidoo kale maamulkii TPLF ama jabhada TPLF ilaa hadda wax wara ayaguna kama aysan soo saarin oo ma aysan sheegan diyaaraddaasi inay soo rideen marka warka diyaaraddaani xaqiiqdiisu waxa uu yahay ilaa hadda labada dhinac wax wara laga mahayo waa suuragal inay soo dhacday diyaaraddaas waa ay jiri kartaa laakiin dawladii ma aysan beenin oo waa been ma aysan dhihin dawladda Itoobiya sidoo kale jabhadii diyaaradda soo riday ma aysan dhihin waa soo ridnay walow la leeyahay jabhadda TV-goodii in muddaaba hawada soo muusagelin oo maalin dhawe tagataa jawreeda mar ay wareysanayaan ayaa u dambeysay taasuna wax ay ku tusinaysaa in cadaadis fara badan ay la kulmayaan jabhadda TPLF oo waxa la leeyahay dhinaca buuraha ayay isku arursanayaan oo ku dhuumaalaysanayaan dawladuna waxa ayba dhinacii buurihii ayay duqeyn dhinaca droniska diyaaradahan dhinaca droniska ayaa dhinaca buuraha ku duqeynaya way adag tahay kulay haday buuraha galaan dadkii wadanka u dhashay si looga adkaado laakiin cadaadis fara badan ayay dareemayaan waayo xitaa warbixinadii maalintii ugu yaraan 3 ilaa 4 barnaamij ay soo gali jireen oo waxay u hadli jireen iska soo daba dhaca hadeertaan war wiiftaha Reuters loo tuuro iyo war kale wiiftaha France 24 loo tuuro iyo wax aan ahayn ilaa hadda laga mahayo jabhadii TPLF marka laftirkoodu marka sheegashadooda ayagoo hadla waan sugi doonaa hadii aan hadlaan ayna xaqiijiyaan diyaaraddan inay soo rideen waan in la socodsiin doonaa hadii dawladda Itoobiya ay beenisay sidoo kalena waan in la socodsiin doonaa bal inuu galno markaane
gaadiidka ay sheegtay dowladda Itoobiya in ay soo qabteen oo ay lahaayeen madaxda sarsare ee TPLF militariga Itoobiya ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen 40 gaari oo ay lahaayeen maamulka sare ee TPLF taliyaha qaybta 32 Cornel Dachane ayaa warbaahinta dowladda u sheegay wax yar ka hor inay maanta soo qabteen 40 gaari oo ay ka carareen hogaamiyaal sarsare oo TPLF ka tirsan Dachane ayaa yiri markaan bilownay howlgalka lugta waxay isku dayeen inay ka cararaan baabuurta ayagoona lugta maciin biday waxa sidoo kale la u dhignay 10 Cornel Dachane ayaa sheegay in ay baabuurtaani keeneen magaalada Maychaw sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in maamulka TPLF u baxsadeen dhulka buuraleyda ah ee fogfog wuxuuna sheegay inay uga dabagali doonaan meesha ay galaanba sharcigana horkeeni doonaan mar aan isha soo mariyay sida looga falceliyay gaadiidkani ay soo bandhigtay dowladda Itoobiya ayaa waxa ay leeyihiinba dowladdu ma waxa ay noo sheegaysaa gaadiidka noocan ah ee raqiista ah ayaa waxa wada jiray Getachew Reeda iyo Debersion Gabra Mitchell iyo saraakiisha sarsare ee TPLF gaadiidkani markii laga fiirsho wadanka Itoobiya waa gaadiid ay isticmaalaan dadka leefarka dhexe ah laakiin sida la aaminsan yahay saraakiisha sarsare ee TPLF oo ku suntanay boobka iyo dhaca hantida dadweynaha sidoo kale shacabka Soomaaliyeed hanti badan inay ka boobeen la aaminsan yahay waayo 27 sano la soo dhaafay waxa Soomaaliya qasay waxay ahaayeen maamulka TPLF laakiin hanti badan oo ay Soomaali leedahna waa ay ku maqan tahay waayo magaalooyinkooda quruxda badan waxa lagu dhisay magaalooyinkeenii quruxda badnaay ee la dumiyay hantidii ay ka dhaceen Itoobiyaanku maalmo ka hor ayay ahayd markii saxaafadda Suudaan ay tabinaysay in mid kamid ah maleeshiyaadkii Tigreega ay qabteen asagoo ka gudbaya xadka Suudaan ay la wadaagtay Itoobiya kaasoo la sheegay in uu watayba 92 milyan oo dollar iyo dahab iyo diamond iyo gaadiid aad u qaaliya marka markaad fikirto ay ku tusinaysaa in uusan ahayn gaadiidkii madaxda sare ee TPLF haddii hogaamiye maleeshiya qarash intaas la eg lagu qabtay nimankaanuna waaba ay ka sii sareeyaan halkaas aanu uga gudubno waa macquul sida dawladdu ay sheegtay in ay tahay gaadiidkii dhabta ah anagu ma xaqiijin karno laakiin hadaladii baraha bulshada la hadalhayay ayaan idinkaga soo qabanay anaguna aaraadeenna ayaan ku darsanay guna fikradaada waxa ay kula muuqato dhinaca commentiga ayaad soo abaari kartaa sidoo kale war degdeg oo hadda soo kordhay laba kamid ah shaqaalaha qaramada midoobeed ayaa maanta lagu toogtay xero qaxootiga ku taala gobolka Tigreega kooxda ammaanka ee qaramada midoobeed oo doonaysa inay booqato xero ay ku jiraan qaxooti Eritrean ah oo ku taala gobolka Tigreega ee dagaaladu aafeeyeen ayaa loo diiday inay galaan gudaha xerada laba kamid ah halkaas ayaa lagu toogtay sida ay sheegeen ila xog ogaala oo ka agdhow hay'adaha qaramada midoobeed arrintaani ayaa waxa ay dhacday kadib markii kooxdu isku dayday inay booqato Shimelba oo kamid ah xerooyinka ay ku jiraan qaxootiga Eritreanka ah ee waqooyiga gobolka Tigreega ila wareedyo ayaa waxa ay u sheegeen wakaalada wararka ee Reuters inaysan faahfaahin dheeri ah bixi karin ayagoo sheegay inay u baqayaan naftooda labada maamul ee meesha ka jira waa Itoobiya iyo maamulka jabhadda xoreynta TPLF labaduba kama aysan hadlin dhacdadan markana aynu galno sida oromada iyo amxaaradu ay isku baashaalayaan baraha bulshada hanjabaadyo ayaa la isku marinayaa oo amxaaradu waxa ay taagan yihiin oo ay bahdilayaan oromada waxa ay leeyihiinba kunkii askari ee oromada ah waxa u dhigma 10 askari oo amxaara ah waa ay ka tababar fiican yihiin waa ay ka geesisan yihiin waa ay ka sharaf badan yihiin waa ay ka taatika badan yihiin dhinac walba annaga ayaa uga fiican ayay leeyihiin kun askari oo oroma waa loogu kalsoon yahay 10 askari oo amxaara ayay leeyihiin amxaaradu waa la yaab wallahi arinta la yaabkeeda ayay leedahay marka amxaaradu waa dad saas isku qab weyn Itoobiyaanka kale dhan inay ka sareeyaan ayay aaminsan yihiin waayo dalkan muddo dheer ayaga boqortooyada ay iska haysan jireen marka dadka dhanba maba u aaminsanaba in ayaga ay ku leefar yihiin waana sida lagu yaqaanaba boqortooyinka adduunka ka jiro dhanba waxay aaminsan yihiin in dadka ka leefar sareeyaan marka ayaga boqortooyadii waa ay dhacday laakiin wili DNA-gooda waxa ku jira DNA-gii boqortooyada oo waxa ku jira inay ummadaan oo dhan ay ka sareeyaan intaas ayaan ku soo koobaynaa warbixintan barnaamijka xiga ayaa noobal ama amaana Allah
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنا وناكسن داوديال qodobada aad barnaamijka ku daawad doontaan waxa kamid ah hanjabaada Suudaan ee Itoobiya iyo militariga Itoobiya oo soo bandhigay gaadiidkii ugu badnaay oo ay ka furteen madaxda TPLF iyo amxaarada iyo oromada oo baraha bulshada ay ku wada xiriirto diriir ba'an ay ku dhex marayso diyaaradda ay jabhada TPLF ka soo riday militariga Itoobiya ma runba mase qodobadaas iyo qodobo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka daawadayaal waxaan la socodsiinaya anigoo qoojo ah fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe ta saaro like ta taaba siina share garay si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya xogaha aan baahino haddii aad horey noola joogtana waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga mahadsanid aynu ku horeyno hanjabaada Suudaan oo mar kale Itoobiya cadaadis saartay dalka Suudaan ayaa go'aan adag ka soo saaray xiisada biyaha webiga Niilka waxayna sheegtay in aysan aqbali doonin in Itoobiya mar kale biyo xireenka buuxiso ilaa laga saxiixayo heshiiskii la isku diidanay warbixin ka soo baxday wasaaradda biyaha ee dalka Suudaan ayaa lagu sheegay in ay halis ku noqon doonto haddii aysan Itoobiya saxiixin heshiiskani dalka Suudaan laguma aqoonin hadaladanka kan ay u adeegsanayso wadanka Itoobiya muddooyinkii ugu dambeeyay laakiin dhawaanahan intii xiisadu bilaabatay dalka Suudaan ayaa isaga baxday wada hadaladii socday maalmo ka horna Suudaan ayaa qabsatay dhul beereed muddo badan lagu muransanaayo oo Itoobiya horay uga habsatay arrintaani ayaa ku soo beegmaysa xilli wadamada Suudaan iyo Masar ay iskaashi military samaysteen dhawaanahan taasoo uu looga galeeyahay in cadaadiska lagu saaro wadanka Itoobiya taasoo buuxin ku waday webiga Niilka oo wadamada saddexdaani wadan ee Suudaan Itoobiya iyo Masar waynu ogaa doonaa meesha ay ku dambeeydo colaadani u dhaxaysa wadamada Suudaan iyo Itoobiya Suudaan oo ah dal ay daashadeen musuqmaasuq iyo dhibaatooyin badan iyo colaado in badan soo socday iyo Itoobiya intaasi baraara iyo barwaaqo iyo bashbash ku jirtay taasoo bilcagsigeedii hadda ay isku bedeshay Itoobiya dal colaado ka socoto Suudaanna ay isku bedelayso dal nabad ah oo barwaaqo iyo xayiraadihii caalamiga intaba laga qaaday adduunyadu waa harka labadiisa gelin marka aan sidaas ku leeyahay tusaale yar aan ku soo qabto horay dalka Suudaan ulama aysan hadlan Itoobiya oo ay ka gaabsanaysay dhibaatooyin ayaga dhaxdooda ah oo gudaha ayaa jiray maanta Itoobiya Suudaan waxa ay qabsatay meelo badan oo lagu muransanay Itoobiya ilaa hadda kama aysan hadlin Suudaan hadda waa ay hanjabaysaa Itoobiya ilaa hadda jawaab kama aysan bixin markii adiga gudahaagu oo dagaal kaaga furmo banaanka waxba kama qaban kartid Suudaan shalay gudaha ayaa dhibaato uga furreed maanta laakiin gudaha waa ka xalisay yihiin walow ay Israa'iil la xirteen oo arrin aad iyo aad looga murgo ah oo maamulka hadda dalka Suudaan haysto arrin dib u dhaca oo wadamada muslimiinta in wadan yar oo asaga dhan 2 milyan oo Israa'iil in la hoosgeeyo ay arrin aad iyo aad u foolxun tahay laakiin Suudaan wax ay ku tilaabsanaysaa horumar wacan dhinaca inay dhulkoodii soo ceshato iyo inay iska celiso Itoobiya maadaama webigaani uu ka dhaxeeyo wadamo dhowr ah oo ay Suudaan ka mid tahay dadka Suudaan xaq waxa ay u leeyihiin in webigaas ayagu ay quudanayaan oo noloshoodu ku jirto ay ku xiran tahay in ay difaacdaan halkaas aynu uga gudubno dalka Suudaan markaan waxaan u gali doonaa diyaaradda la sheegay in ay soo rideen jabhada TPLF diyaaraddaasi oo nuuceedu yahay MiG-23 ilaa shalay ayaa baraha bulshada la waday in diyaaraddaasi soo rideen jabhada TPLF laakiin dhinaca dawladda ilaa hadda wax wara kama aysan soo saarin sidoo kale maamulkii TPLF ama jabhada TPLF ilaa hadda wax wara ayaguna kama aysan soo saarin oo ma aysan sheegan diyaaraddaasi inay soo rideen marka warka diyaaraddaani xaqiiqdiisu waxa uu yahay ilaa hadda labada dhinac wax wara laga ma hayo waa suuragal inay soo dhacday diyaaraddaas waa ay jiri kartaa laakiin dawladii ma aysan beenin oo waa been ma aysan dhihin dawladda Itoobiya sidoo kale jabhadii diyaaradda soo riday ma aysan dhihin waa soo ridnay walow la leeyahay jabhadda TV-goodii in muddaaba hawada soo muusagelin oo maalin dhawe tagataa jawreeda mar ay wareysanayaan ayaa u dambeysay taasuna wax ay ku tusinaysaa in cadaadis fara badan ay la kulmayaan jabhadda TPLF oo waxa la leeyahay dhinaca buuraha ayay isku arursanayaan oo ku dhuumaalaysanayaan dawladuna waxa ayba dhinacii buurihii ayay duqeyn dhinaca droniska diyaaradahan dhinaca droniska ayaa dhinaca buuraha ku duqeynaya way adag tahay kulay haday buuraha galaan dadkii wadanka u dhashay si looga adkaado laakiin cadaadis fara badan ayay dareemayaan waayo xitaa warbixinadii maalintii ugu yaraan 3 ilaa 4 barnaamij ay soo gali jireen oo waxay u hadli jireen iska soo daba dhaca hadeertaan war wiiftaha Reuters loo tuuro iyo war kale wiiftaha France 24 loo tuuro iyo wax aan ahayn la hadda laga ma hayo jabhadii TPLF marka laftirkoodu marka sheegashadooda ayagoo hadla waan sugi doonaa hadii aan hadlaan ayna xaqiijiyaan diyaaraddan inay soo rideen waan in la socodsiin doonaa haddii dawladda Itoobiya ay beenisay sidoo kalena waa in la socodsiin doonaa bal inuu galno markaane
gaadiidka ay sheegtay dowladda Itoobiya in ay soo qabteen oo ay lahaayeen madaxda sarsare ee TPLF. Militariga Itoobiya ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen 40 gaari oo ay lahaayeen maamulka sare ee TPLF. taliyaha qaybta 32 Cornel Dachane ayaa warbaahinta dowladda u sheegay wax yar ka hor inay maanta soo qabteen 40 gaari oo ay ka carareen hogaamiyaal sarsare oo TPLF ka tirsan. Dachane ayaa yiri markaan bilownay howlgalka lugta waxay isku dayeen inay ka cararaan baabuurta ayagoona lugta maciin biday. waxaa sidoo kale la u dhignay 10. Cornel Dachane ayaa sheegay in ay baabuurtaani keeneen magaalada Maychaw. sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in maamulka TPLF u baxsadeen dhulka buuraleyda ah ee fogfog, wuxuuna sheegay inay uga dabageli doonaan meesha ay galaanba sharcigana horkeeni doonaan. mar aan isha soo mariyay sida looga falceliyay gaadiidkani ay soo bandhigtay dowladda Itoobiya ayaa waxa ay leeyihiinba dowladdu ma waxa ay noo sheegaysaa gaadiidka noocan ah ee raqiista ah ayaa waxa wada jiray Getachew Reda iyo Debretsion Gebremichael iyo saraakiisha sarsare ee TPLF. gaadiidkani markii laga fiirsho wadanka Itoobiya waa gaadiid ay isticmaalaan dadka leefarka dhexe ah, laakiin sida la aaminsan yahay saraakiisha sarsare ee TPLF oo ku suntanay boobka iyo dhaca hantida dadweynaha. sidoo kale shacabka Soomaaliyeed hanti badan inay ka boobeen la aaminsan yahay, waayo 27 sano la soo dhaafay waxa Soomaaliya qasay waxay ahaayeen maamulka TPLF. laakiin hanti badan oo ay Soomaali leedahna waa ay ku maqan tahay, waayo magaalooyinkooda quruxda badan waxa lagu dhisay magaalooyinkeenii quruxda badnaay ee la dumiyay hantidii ay ka dhaceen Itoobiyaanku. maalmo ka hor ayay ahayd markii saxaafadda Suudaan ay tabinaysay in mid ka mid ah maleeshiyaadkii Tigreega ay qabteen asagoo ka gudbaya xadka Suudaan ay la wadaagtay Itoobiya, kaasoo la sheegay in uu watayba 92 milyan oo dollar iyo dahab iyo diamond iyo gaadiid aad u qaaliya. marka markaad fikirto ay ku tusinaysaa inuusan ahayn gaadiidkii madaxda sare ee TPLF. haddii hogaamiye maleeshiya qarash intaas la eg lagu qabtay, nimankaanuna waaba ay ka sii sareeyaan. halkaas aanu uga gudubno waa macquul sida dawladdu ay sheegtay in ay tahay gaadiidkii dhabta ah anagu ma xaqiijin karno, laakiin hadaladii baraha bulshada la hadalhayay ayaan idinkaga soo qabanay, anaguna aaraadeenna ayaan ku darsanay. aduna fikradaada waxa ay kula muuqato dhinaca commentiga ayaad soo abaari kartaa. sidoo kale war degdeg oo hadda soo kordhay, laba ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobeed ayaa maanta lagu toogtay xero qaxootiga ku taala gobolka Tigreega. kooxda ammaanka ee qaramada midoobeed oo doonaysa inay booqato xero ay ku jiraan qaxooti Eritrean ah oo ku taala gobolka Tigreega ee dagaaladu aafeeyeen ayaa loo diiday inay galaan gudaha xerada. laba ka mid ah halkaas ayaa lagu toogtay sida ay sheegeen ila xog ogaala oo ka agdhow hay'adaha qaramada midoobeed. arrintaani ayaa waxa ay dhacday kadib markii kooxdu isku dayday inay booqato Shimelba oo ka mid ah xerooyinka ay ku jiraan qaxootiga Eritreanka ah ee waqooyiga gobolka Tigreega. ila wareedyo ayaa waxa ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters inaysan faahfaahin dheeri ah bixin karin, ayagoo sheegay in ay u baqayaan naftooda. labada maamul ee meesha ka jira waa Itoobiya iyo maamulka jabhadda xoreynta TPLF, labaduba kama aysan hadlin dhacdadan. markana aynu galno sida Oromada iyo Amxaaradu ay isku baashaalayaan baraha bulshada. hanjabaadyo ayaa la isku marinayaa oo Amxaaradu waxa ay taagan yihiin oo ay bahdilayaan Oromada. waxaaba ay leeyihiinba kunkii askari ee Oromada ah waxa u dhigmaa 10 askari oo Amxaara ah. waa ay ka tababar fiican yihiin, waa ay ka geesisan yihiin, waa ay ka sharaf badan yihiin, waa ay ka taatika badan yihiin. dhinac walba annaga ayaa uga fiican ayay leeyihiin. 1000 askari oo Oromaa waa loogu kalsoon yahay 10 askari oo Amxaara ayay leeyihiin Amxaaradu. waa la yaab, wallahi arinta la yaabkeeda ayay leedahay. marka Amxaaradu waa dad saas isku qab weyn Itoobiyaanka kale dhan inay ka sareeyaan ayay aaminsan yihiin, waayo dalkan muddo dheer ayaga boqortooyo ay iska haysan jireen. marka dadka dhanba maba u aaminsanaba in ayaga ay ku leefar yihiin, waana sida lagu yaqaanaba boqortooyooyinka adduunka ka jiro dhanba waxay aaminsan yihiin in dadka ka leefar sareeyaan. marka ayaga boqortooyadii waa ay dhacday, laakiin wili DNA-gooda waxa ku jira DNA-gii boqortooyada oo waxa ku jira inay ummadaan oo dhan ay ka sareeyaan. intaas ayaan ku soo koobaynaa warbixintan. barnaamijka xiga ayaa noobal ama amaano Allah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داوديال qodobada aad barnaamijka ku daawad doontaan waxaa kamid ah hanjabaada Suudaan ee Itoobiya iyo militariga Itoobiya oo soo bandhigay gaadiidkii ugu badnaay oo ay ka furteen madaxda TPLF iyo amxaarada iyo oromada oo baraha bulshada ay ku wada xiriirto diriir ba'an ay ku dhex marayso diyaaradda ay jabhada TPLF ka soo riday militariga Itoobiya ma runba mase qodobadaas iyo qodobo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka daawadayaal waxaan la socodsiinaya anigoo qoojo ah fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe ta saaro like ta taaba siina share garay si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya xogaha aan baahino haddii aad horey noola joogtana waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga mahadsanid aynu ku horeyno hanjabaada Suudaan oo mar kale Itoobiya cadaadis saartay dalka Suudaan ayaa go'aan adag ka soo saaray xiisada biyaha webiga Niilka waxayna sheegtay in aysan aqbali doonin in Itoobiya mar kale biyo xireenka buuxiso ilaa laga saxiixayo heshiiskii la isku diidanay warbixin ka soo baxday wasaaradda biyaha ee dalka Suudaan ayaa lagu sheegay in ay halis ku noqon doonto haddii aysan Itoobiya saxiixin heshiiskani dalka Suudaan laguma aqoonin hadaladanka kan ay u adeegsanayso wadanka Itoobiya muddooyinkii ugu dambeeyay laakiin dhawaanahan intii xiisadu bilaabatay dalka Suudaan ayaa isaga baxday wada hadaladii socday maalmo ka horna Suudaan ayaa qabsatay dhul beereed muddo badan lagu muransanaayo oo Itoobiya horay uga habsatay arrintaani ayaa ku soo beegmaysa xilli wadamada Suudaan iyo Masar ay iskaashi military samaysteen dhawaanahan taasoo uu looga galeeyahay in cadaadiska lagu saaro wadanka Itoobiya taasoo buuxin ku waday webiga Niilka oo wadamada saddexdaani wadan ee Suudaan Itoobiya iyo Masar waynu ogaa doonaa meesha ay ku dambeeydo colaadani u dhaxaysa wadamada Suudaan iyo Itoobiya Suudaan oo ah dal ay daashadeen musuqmaasuq iyo dhibaatooyin badan iyo colaado in badan soo socday iyo Itoobiya intaasi baraara iyo barwaaqo iyo bashbash ku jirtay taasoo bilcagsigeedii hadda ay isku bedeshay Itoobiya dal colaado ka socoto Suudaanna ay isku bedelayso dal nabad ah oo barwaaqo iyo xayiraadihii caalamiga intaba laga qaaday adduunyadu waa harka labadiisa gelin marka aan sidaasi kula yahay tusaale yar aan ku soo qabto horay dalka Suudaan ulama aysan hadlan Itoobiya oo ay ka gaabsanaysay dhibaatooyin ayaga dhaxdooda ah oo gudaha ayaa jiray maanta Itoobiya Suudaan waxa ay qabsatay meelo badan oo lagu muransanay Itoobiya ilaa hadda kama aysan hadlin Suudaan hadda waa ay hanjabaysaa Itoobiya ilaa hadda jawaab kama aysan bixin markii adiga gudahaagu oo dagaal kaaga furmo banaanka waxba kama qaban kartid Suudaan shalay gudaha ayaa dhibaato uga furreed maanta laakiin gudaha waa ka xalisan yihiin walow ay Israa'iil la xirteen oo arrin aad iyo aad looga murgo ah oo maamulka hadda dalka Suudaan haysto arrin dib u dhaca oo wadamada muslimiinta in wadan yar oo asaga dhan 2 milyan oo Israa'iil in la hoosgeeyo ay arrin aad iyo aad u fool xun tahay laakiin Suudaan wax ay ku tilaabsanaysaa horumar